kun saaxiib waa yeelan kartaa laakiin guur haddee noqoto hal naag lay guursan kartaa hal naag ka badan haddaa guursatid ee naagahaas istiraraan waa lagu xiray dayaxdal nuurshe sidoo isagana ugu falceliyey arooskii xaaskii labaad uu guursanayay xariir axmed gabadha dunida inta ilaahay soo istaajiyay ugu doqonso waxa mataqaanaa waa gabadhii guur ka ogolaato ninkii afar ciyaala iyo xaaskiisii oo dhib badan la soo martay ninkii ka soo tago ee dhaho waa ku jecelahay ama nolol baan kula wada lagu karbaashay ama karbaashkii lala dhacay xariir axmed ama fanaanka aadka loo wada yaqaano ama bulshada ay aad u xiiseyso dhanka iyo heesiisa waxa dhaleeceen badan ku timid ama aad loogu dhaleeceeyay xaaskii labaad oo guursanayay ama arooskii labaad oo galayay arintaas oo ah heestii koobaad oo xaaskiisii koobaad oo soo qaaday oo heestaas oo la wada ogaa sida ay u qaraxday ama bulshada badana ay ugu farxeen arooskaas laakiin badana ay arooskiisii labaad ama xaaskiisii labaad badana dadkii kuma farxin ilaa ay fanaaneen xitaa ay Justin Now ay ka wada hadlaan ama ay falcelin fara badan ay ka sameeyeen arintaas marka badana ma jeclo in lala guursado ama xaas labaad lala guursado qof walba laakiin ragga isku mid maahan oo raggana iyakana ahaan isku dooq maahan dad waxa iska jiro rag waxa iska jiro in badan jecel in ay xaasas fara badan ay sameystaan ama ay guursadaan laakiin dumarka iyakana cagsi bay nagu yihiin oo ma jecla in ay just ahaan ay lala guursado ama lala wadaago ninkeeda ah marka waxa la dhihi karaa ama falcelinta ay dhanka iyo social media lagu sameeyay ama fanaaniinta ay badana ay ku taageereen xaaskii koowaad ay badana ay tan u xaaskii labaad ee loo muujin wax farxad ah midaas waxa la dhihi karaa waa mid ay just ahaan ay bulshada Soomaaliyeed ama ay taageerayaasha in badan ay ka wada xumaadeen in uu xaaskiisii ay si kadis ah ay ku kala markaas isaga ahaana oo aroos cusub oo galo mid laakiin ay dadka badana ama dumarka ay badana ay ku taageeraan ama taageero aad u fara badan ay ugu yihiin fanaan dayaxdal nuurshe fanaankaas waa just ahaan waa fanaan ay badana ay rag ayna taageerin laakiin ay boqol ay dumar ay taageerayaashiis ay u badan yihiin waa mid qura ay ku taageersan yihiin ama ay ku garb istaagsan yihiin mar walba oo isaga ahaan ama noloshiis ahaan ay wax ku soo gudboonaadaan in ay garab aad u muujiyaan midaas oo ah in uu hal kaliya xaas u leeyahay midaas oo just ahaan oo hiise far badan uu soo qaaday oo ilaa waaye aad u far badan ay la joog ahaan ama isqabeen ee dad iska agdhow ay ahaayeen in badan dumarku taageersan yihiin in badan waa taas boqolkiiba boqol in uu xaaskiisa qura oo ku taagan yahay ama uu iyada oo qura uu ku kooban yahay midaasna just ahaan ismalihin ama daanana rag waa mid waxa weliga jiri doonto ama wax noloshu maaluhu waa iska si oo waaye cusub ama nolol cusub wad arkaysaa nolosha ay taas ku dhisan marka Allah ka wada dhigo kuwii isku barakeeyo ama just ahaan isku wada wanaajiyo midaas waa la wada jecel yahay ama bulshada Soomaaliyeed in badan taas way wada jecel